السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مونتالك تبدأ مدحضة قرن كايا وسير هذا يكاد كحسبنا برصابة يمدك كلام شو ذا هذه أضمن لكم محض قيا سوق قيبك حفل هذا عاو كلمية ويسوي من كسوق قيب كشة وحاسي قارئ سون وير يا رجع عن بريها كرير مقنعين هل كان مقعش ولا حدري هو كلام بضبع عاو هل كان نسكن بريها نسوي الرئيسو صدقني مقعود الشريك هو كلامه هذه أضمن سون وير يا وأنا هو إن أنا بينك لا تجي سكت واحد الله فروع المعروف السماء هذه أضمن تجي سون وير يا كرير الله إيه شعب كذا مسؤول يتحققش حفلة نسال شيء وحياة أباب اليوم ما تقدر لها ولا حسبها وحصل معنا قيمها سبورتها بل يروى إخبارات تجيبنا وريقها وحنا هذه أضرب منطقة عدة أباب كان قيم شيء ويكون كلهم سنة كان دولة الخاصة ما يركض يحملون الكلية أول شيء قال آدي أضرب منطقة وحكلون منطقة بعض عيارها وزارته بل يرى وزارته كشف قيصر وزيرك أقاسم ياشا dadaalka iyo juhdiga ay galiyeen iyagana arinta waa uga mahadnaqaynaa gobolada oo dhanba ciyaartooygooda inta markaan ku dhaafo mahadnaqa wuxuu doonayaa caawa waxaan nahay kulmiye haweenta kulmiye markaa kulmiye mar hadduu isu yimid dadku waa inuu jiraa wax badan oo ka dhexeeya kuwa shaqeeya kulmiye Soomaaliland dhulka koobay daraf ilaa daraf markaa weyn isxusuusinaa haddaynu kulmiye dhahay maxaa deynoo badan ku socon كو هرت كلية وحاساسي أقويها نوعين الصوماليلاند وكو كيها مدحوينها ما أنت تشوفها وبدو حسبها اللهم حرستي فقرة يحب بدنا أقويها كلية مقعود بحير بنقصونه أنت هنا نعمل تكلم قريب ده حسبها لماذا ما بدا يهرب مركب وحنا نقرأ بين مسدح حاكم الموضوع حق شنو موضوع حق شنو ما أنت كلية اسمه معارض رسول جابي كهذا ما يهرب isagoo dawladda wuxuu qaatay magaca dawladda wax qabadka inaga waxa laga rabaa hadaynu kulmiye u hiirinayno dadkii soo asaasay hadaynu u hiirino kulli ka horeeyay halkan ka soo galay hadaynu u helno kulli ka horeeyay SNM iyo SYL ha hadaynu u helno madaxweynayaashii soo maray ee dalka dhisay iyo odayaashii gurtiga ah dabadii la jeexay horumarka ahayd iyo nabad iyo midnimada inaynu hayno badayno balan oo nin warkiisa ka ilaaliyo كلية مركبة واحد على جربها حبيبة كلية إنه حزب قد يسوي استثمار مركبة يسوي ورد يوقف لي سياح حدو يسوي وقف اللي ليه أو بين شيء أو حضايا وأنا شقيين هذا بيكون قيد قبلي هرت هو إنه تايس كوينا مركب كلية مركب الحزب يسوق له وحقوه الرئيسين الحزب يرسل حزب ما هاي يوقف هذا حزب جديد هو إنه استواء قليان وإنه بحياة قارن كحزبه ويحشر يقول شيء أدنى واجب حزب كساري أدنى واحد كل هذا حزب حقوق لبعض سيسوي سامن مركب وانا ضبطي وهير كنيسة حزب جديد كمولين ما يبرع حسابته حتى لا يمكن واو كلمية وعضيسين قاربات توانشر الجاي بين العضيين حزب لكن اسمه ديوان تاريخ بريت ميلو عمري ديوان حزب كمجو بريتو إلا تاريخه يسبدل إذا أو حزب بقراص أنا كبعد على غيره وأنا شيل كانوا يقدر حوا وإنه قف استيوان جاي وشرعي حزب جاي قانا أو كل أقمة oo gudoomiyaha iyo xubinta caadiga ay ahaana labo xisbiyahan oo u siman xisbiga oo raay isu geyn kara oo tala isweydiin kara oo wada lahaan kara hadii kala dee waxba dhantaara marka taaka gudubno maanta waxa maxay naga horyaada maanta waxa lagu jira xilli waa soo socda xilligii oraha xisbiga tartamaya waa 3 jir ama 4 jir kulmiye waa qaangaad kulmiye waxa uu hayaa wado umaro ووددي وجهي مدحوينها maanta jooga asaasiisi oo dawladdu ay la baxday wax qabadka oo kaga soo horjeeday nidaamka uu aqoonsay waxa la rabaa in wax qabadkii ka dhamayno maxaa uu horeey wax qabadka qofka kulmiye shaqeynaya xilaya waa inuu saacada shaqada shaqeeyo qofka kulmiye ee xisbi haya waa inay balan noqotaa qof kasta Soomaaliland inaanu xafiiskiisa uga maagin waxa ku qaban maaya ama isku qolama tiigin ama isku xisbi ma tiigin waa xilba saar xafiiska fadhido حزبك محاوي حلقة واش معك لكن إذا هي تصبر كسر قليان حلقة ويا رسالوي وإنه قف كسر قليان أنا نقول وجه جيس احتاج كذا فيرو كذا عليه إن تدخل وجه جيس من ذا وقصله من ذا وعر ويا حقوق رسالة هذا الناس سايرين هو المسؤول هؤلاء إنه يعلم كمال ما هذا الكلام بدي وحكم إذا
ballaarinta dekeda berbera iyo jidka dhisidiisa kooridoorka berbera arrintaasi waa horumar nasiib waxaynu helay maanta oo qaranku helay waxaynu maqlaynaa dabayaaq badan dad badan oo intay soo fadhiistaan tv-ga iyo tviyada waxay ku hadlaan dhaliil aan jirin bay saara bal qaar baa ka gudba waxay ku hadlaan magac bela annagoo reer hebela berbera dekedu waa hanti qaran reer ma sheegan karo kooxi ma sheegan karto eerbooryadu waa hanti qaran jidadku waa hanti qaran hantida qaranka ka dhaxaysa cidina ma sheegan karto hargeysa waa caasimadii qaranka waa loo sameeyey ceerigaabo waa caasimad qaran waa gobol waxaynu doonaynaa qofka ku dhasha boorama ama sayrac ku dhasha isaga oon qaloonin inuu dagaal ascaanood iyo ceerigaabo ayay himladeenu u socotaa ma aha wadada qaranka iyo airboor qaran iyo meel qaran kule inuu yahay aniga loo hor fadhiisanaya waayo aabahay baa dhigtay afka dadka ay ku hadlayaanna kuma hadli karaan dadka ummadda dhan magaceeda ku hadlayaanna lama qabta anaga idin sheegay waana la arki doonaa marka ma aha ilaa afka meelaha qaarkood ay maaragtay ay ka boor xufteeyaan waa la sii dekada berbera waa la balaarinaya ereba dadka lagu hadlaa berbera waa la wareeji berbera cid baa la siiyey berbera lama wareejin lamana wareejinayo waa hanti qaran cidina ma wareeji karto berbera waa la balaarinaya wadada ku xidha caalamkana waa loo furay wadooyinka haddii awoodeena gaadho qaar kalena waynu ballaarinaynaa eerboryadana waa ballaarinaynaa wadooyinkeena iyo qarankeena inaynu wax u qabanaa waa la rabaa maanta waxaan tagay saddex qoor caday baa tagay riig baa lagu taagay rag baa ka murmaayey riiga taagay masaasaynu qarano ku noqonayna war biyaha lagu soo saaro ninka hadalka keenaya waa lagu taagay waxaan ku leeyahay haddii aad diidana wax kugu dagaalamayna waayo ummadda meesha joogtaa way haraadanta markaa ma biyaha soo saaraan ku murmayna ma dekadaan ballaaraan ku murmayna ma dariiqa hala ballaarayna ku murmayna dowladda waxaa loo doortaa ooynu mas-uuliyiin u nahay ooynu madax ugu nahay xisbiyada oo dhan wadani kulmiye ucid iyo qof kasta mas-uula waxaa saaran inaynu qaranka wax u qabanaa oo inaan dhegaysan nin dhagaala ama aan garanayn ba wax laga hadlayo waxaan kusoo koobayaa kulmiye haddaynu nahay in badan baynu qabanto intii aynu dalka hayni waayo arag hore waxaanu nahay mucaarid waxaanu leenahay waayo aragnimo xisbi ooynu ka soo baxnay dhibaatooyin badan oo gudaheena ah kolka hore midnimo qaranka ah iyo xisbiga gudihiisa ah laba qofku inuu isagu sanadiifiyo saddex inay habnadeenu haddaynu dalkeena wax u qabanno afar inuu qofku ogaado isagana in waajib lagu leeyahay dalkana uu xuquuq leeyahay eenay ahayn oo qura anigu baa xuquuq leh waa isweydaar inuu taana ogaano waxaynoo badana midnimo iyo horumar dalkeena aad iyo aad baa mahadsantahay